madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo kadib safar 20 cisho qaatay oo uu ku joogay magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya. Madaxweynaha ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo waxa ku soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada, mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee dawlad goboleedka Jubbaland, ururada dhalinyarada, haweenka iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka ee Jubbaland. Soo dhaweynta madaxweynaha kadib waxa warbaahinta kula hadlay qaybta nasashada ee garoonka diyaaradaha, wuxuuna si kooban uga warbixiyay safarkiisa iyo waxyaabihii uu soo qabsoomay. Madaxweynaha ayaa sheegay in intuu ku sugnaa magaalada Nairobi uu kulamo kala duwan la qaatay beesha caalamka, siyaasiyiin Soomaaliyeed iyo madaxda dalka dariska ah ee Kenya. Waxaana uu sheegay in dhammaantood kulamadaasi looga hadlay arrimo quseeyo amniga, siyaasadda iyo sidii xal waara loogu heli lahaa khilaafka dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka Jubbaland. Madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee gobolka Gedo, wuxuuna dawladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyay in ay degmooyinka gobolka Gedo ka wado burburin maamul. waxaan safarkaas gaaban ku joogay oo ku tagay Nairobi isoo dhowr xaalo ahaa safiirada beesha caalamka oo aan kala hadlaynay xaaladda maanta aan marayno, culayska shabaabku u hayo Soomaaliya, siyaasadeedii meesha ay taagan tahay, waddanku xagga uu u socdo, wada shaqayn la'aanta iyo wada socod la'aanta dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadii, kala go'naanshaha sistamkii dawladnimo ee Soomaaliya oo keeni karaya cawaaqib darro aan cidina mahadin doonin. maana siyaasiyiinta iyo beesha caalamka ee daneeya arrimaha Soomaaliya ay maanta arrin ku wada taagan Soomaaliya xaaladda ay marayso, iyadoo moodo dawladdii federaalka ahayd inay gabtay waajibaadkii ay lahayd, shaqadii u taallay, isku wadistii waddanku ay maamulaan midka uu yahay, waxa uu u baahan yahay in la aduudo meesha uu marayo isku wadistii wax badan ay meesha ka maqan tahay. haddii qofku uu tiisa ilaalin waayo dee wixii kale dhibaato ee soo gaadhay waad garan kartaa waxa isagana ay saamayn ku yeelanayso. shalay baa xadgudubyo la sameeyey, wasiir baa la xidhay si aan sharci ahayn, ciidan baa guddoomiyaal iyo maamul baa la qaaday, meelahaan munaasab ahayn baa la geeyey, dawlado kalea interfeer ku sameeyey, wax kalea lagu soo sheegay, waa la qaaday. maanta dawladdu markay guddoomiyayaal degmo oo dawladii magacawday oo haykal dastuuriga ku magacaaban oo shaqaynaya intay qaada tiraahdo wax kale aan idiin samaynaynaa, xaq ay u leedahay muxuu yahay? waxaan in badan uga wareegaynay arrinta gobolka Gedo inaan u yara kaadino, bal hal tartiib aan u xallino, bal sidaan hala yeelo. ilaa maanta ciidankii shabaabka la dagaalamayay iyo hubkii ay stateku u lahaa in badan oo ka mid maanta ay shabaab gacanta u galeen. Jubbaland waa dawlad goboleed ka mid dawladda federaalka ee Soomaaliya, xaqa dastuuriga ee lagu kala bixi karana cid waliba waxeeda ku waxaysan karta. heshiis siyaasadeed baa lagu gaari karaa doorasho iyo meesha la aadayo, kugu sanbay meel ku tegi kartaa kuna socon kartaa. anaa idhi waqtigeedii waa la soo dhaafay. dib u soo noqoshada madaxweynaha Jubbaland ee magaalada Kismaayo ayaa ku soo aadayso xilli uu cirka isku sii shareerayo khilaafka u dhaxeeya Jubbaland iyo dawladda federaalka Soomaaliya. walina Jubbaland xal uma aysan helin xalinta khilaafaadka ka dhex jira. Ilaadan Maxamed, TV-ga Universal, magaalada Kismaayo.